بسم الله gabaygan qabyaalad waxaan curiyay kadib markii aan arkay dawladda federaalka Soomaaliya oo qaab qabiil ah wax ku raadisay halkii ay wax ku raadin lahayd qaab siman oo loo wada dhan yahay gabay qabyaalad gabay ma qoro haddaan qalaf ka siinayne qahriga iyo dhibkiis lama qaxweeyeene qiyaad iyo tahliig uma qinaabteene mar haddaan qoro qodobka aan taabto qubaca adigoo wadan dhinac qartaagaaye markaasaad qaylisaa ood qaracantaane quruumaha arkaa waxaad kala qodaysaane qabiil waa midkaan riday qarankii taagnaaye waa waxa qalloociyay tiirkii qadinaaye waa waxa qasay dalkii qurxanaaye waa waxa qarow ku riday intii qumaneede waa waxay la qosli cadowga qaarkiiye waa waxa qaxootina badan qaaradaha u gaarnay waa waxa qadarta alle noogu qubanayso qiyaas laguma helo intuu qabriga geeyay intuu qiyaamaha u diray cadaabkii qaribnay intuu qiiq ku shido quuqleynayso qahraan waxaa haray iimaankii laga qaaday intuu qufulka xiro qoloqolo sheegtay intuu qarbusho maamulku qarwayso waad qadi weliga eeba kaa qadiya qiirad ninkii lahaa oo quyaca diidan qabqab dagaali weligii duulaan aan qaadin qasaarihii dhacay quuradii hayso ninkaa qumanon qolada yeelaynin oon qabiil wax ku raadinin oo khiyaano diidan maal qaata aan noqon oon qaanadaha buuxsan allow adaa qaniye xilkan uu qaado kama quusta wanaag qaadi baan ahaye nin qayr doonayo qaybsha baan ahaye qabiil iyo warkii xoray qorigiisa quluub saafiyo qoyan baan ahaye inkastay qurxoon tahay qodobadan diiday qasaarihii u geystaan qalbi ku hayaaye allow dhimbilaha nagu qaxaa qiica naga saar qodobadan soo sheegoon mid u kala qaaday ila arag qaarigan qurubka yeerayo ku qasaarnay qarnigan waa ka naqatuuray qorshahan wado qaabka saxan raaca mar haddaan qaybiyoon qaraarka aan sheegay oon qormada qaadon qunta sare geeyay sow inaad qabiil nacdaa kuma qumanaanin sow inaad qabiil nacdaan kuma qumanaanin waad ku mahadsantahay qaabka wanaagsan u dhageysatay una daawatay gabaygii qabyaalad ee uu curiyay